شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان داودياش kala duwan ee kanaalkayga Khaalidniyo official ku xidhan aad baan idin salaamaya daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa muhiimadaha amba ahmiyadka uu noo leeyahay qofku inuu sameeyo jimicsi amba jimicsigu faa'iidooyinka uu leeyahay qofka jirkiisa. daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaad baan idin salaamaya soo dhawaada daawadayaal inagoo barnaamijkan kusoo koobi karay faa'iidooyinka uu noo leeyahay jimicsigu bal waxaan isku dayi doonaa inaanu qaar ka mid ah ka sheegno ahmiyadka uu noo leeyahay jirkeena uu leeyahay. haddaba daawasho wacan jimicsigu wax faa'iidooyinkiisa ka mid ah amba aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan inuu ka mid yahay waxa ugu muhiimsan amba shayga ugu muhiimsan ee loo isticmaalo in miisaanka lagu rido. waxaa laga yaabaa dad badan oo bulshadeena ka mid ah amba dad badan oo caalamka ka mid inay ka cabanayaan miisaan aad u fara badan oo soo xoog saaray amba ku soo baxay. haddaba daawadayaal qodobka ugu horeeya waa miisaanka, maadaamuu exercise-ku ka mid yahay amba jimicsigu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee goyn kara miisaanka aadka u badan ee dadka ku dhaca. daawadayaal qodobkeena labaad wuxuu noqon doonaa hoos u dhigidda xanuuno ka mid ah oo run ahaantii farabaas ku haya bulshadeena. haddaba xanuunada waxa ugu horeeya xanuunka loo yaqaano macaanka, maadaamuu macaanku qaybo badan leeyahay hase yeeshee inta ugu badan macaanka waxaa daweeya jimicsiga. macaanku waxau ka yimaadaa qofka oo karbohaydrate fara badan cunaa isla markaana aan wax jimicsiya samayn. sidoo kale waxaa ka mid ah xanuunka loo yaqaano dhiigkarka laftigiisa jimicsiga amba qofku hadduu jimicsi sameeyo isaga laftigiisa hoos ayuu uga dhacaa. dakhtaro badan amba talooyin badan ayaa bulshada lagu siiyaa markasta inay ku dadaalaan jimicsiga. dakhtaro badan ayaa dadka talo ku siiya amba dadka waxa lagula taliyaa inay sameeyaan jimicsi, sababtoo ah labada xanuun ee maanta bulshadeena ugu daran waa xanuunka loo yaqaano macaanka iyo sidoo kale xanuunka loo yaqaano dhiigkarka. muhiimadaha kale uu noo leeyahay waxaa ka mid ah inuu qofkii seexdo hurdo fiican, sababtoo ah markastoo qofku jimicsi sameeyo waxa jirkiisa ka baxaya waxyaabo aanu u baahnayn jirku. qodobka kaleen ku dari doono daawadayaal waxaa ka mid ah qofka wadna xanuunka leh. dadka qaar wadna xanuun ka cabanaya in lagu yidhaahdo samee jimicsi fara badan. daawadayaal intaa waxaa inoogu ekaaday barnaamijkeenii ka hadlayay jimicsiga iyo ahmiyadka uu leeyahay jirkeena. aad baan idiin salaamayaa dhammaan daawadayaasha kala duwan. waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh.